Iska horimaad ka dhashay xukunkii maxkamadda Israa'iil ay ku go'aamisay qoysas Falastiiniyiin ah in laga raro xaafadahooda ayaa khasaare badan geystay. Dhulballaarsiga Israa'iil ayaa iyada laftirkeedu waxaa ka soo gaaray khasaare aanay filayn. Dhanka Xamaas ayaa soo bandhigtay awoodda gantaaladeeda oo aanan horay loo ogeyn, taasoo Israa'iil dhakafaar ku noqotay. Waxaa muuqanayay raxan gantaalo ah oo hawada Israa'iil dul sabeynayay. Gantaalada qaarkood ayaa ku dhacay bartilmaameedkoodii, taasoo ceeb ku noqonaysa difaaca Israa'iil ee nooca Iron-ka ah ama birta ah, oo ay Israa'iil casriga ku tilmaamaysay. Tirada gantaalada la tuuray ayaa ahaa 132. Wararka ayaa tibaaxaya in Israa'iil aanay xamili karin wax dagaal ah oo ayna la daalaa dhacayso dhibaatada ka soo gaadhay dagaalkii 3 beri. Israa'iil ayaa markuu dagaalka qararaaday waxaa adkaaday in gudaha loo soo galo iyadoona ka xidhnayd dhulka, cirka iyo badda. Waa mid daran, khasaaraha dhaqaale ee Israa'iil soo gaaraya maalin kasta ayaa waxaa lagu tilmaamay qiyaastii balaayiin dollar. Dhanka Gaza, dhimashada ayaa gaartay 31 ruux, halka ay Israa'iil shaacinin wax khasaare ah oo gaaray. Xaafad Holland lagu magacaabo oo ku taalo magaalada caasimadda ah ee Tel Aviv, gantaal ayaa ku dhacay bas goobta marayay, waxaana muuqanayay baska inuu gebi ahaanba burburay. Afhayeenka booliiska Israa'iil Mark Razovel ayaa AFP u sheegay in baska ay ku geeriyoodeen 3 dumar ah oo kala ah gabar yar oo 5 jir ah, haweeney 30 jir ah iyo mid 50 jir ah. Goorta caasimadda Israa'iil ay ku dhacayeen gantaalada ayaa la arkayay dad kala cararaya iyo qaar bogga dhulka ku haya oo siqay. Xamaas ayaa gantaalada bilaabay kadib markii ay Israa'iil duqeyn ku burburisay taawarkii Hanaadi ee Gaza, oo ay xafiis ku lahaayeen hoggaanka siyaasadda ee Xamaas. Qoraal ka soo baxay dhanka dowladda Mareykanka ayaa la arkayay in ay ku taageerayaan Yuhuudda haysata dhulka barakeysan ee Falastiin. Qoraalka ayaa lagu sheegay Yuhuudda in ay difaacan karto dalkeeda iyo dadkeeda. Waa dadkii soo duulay oo haddana lagu difaacayo in ay difaacanayaan dadkooda iyo dalkooda. Dowladda Turkiga ayaa si cara leh ugu jawaabtay hadalka ka soo baxay dowladda Mareykanka, iyagoona ku tilmaamay hadal xaqdarra. Jaamacadda Carabta dhankooda waa ay cambaareen, waxayna ugu yeereen ficilada Israa'iil mid daandaansi ah, uguna baaqeen in ay joojiyaan daandaansiga. Carabta ayay dadka muslimiinta ah u jeediyaan in dhankooda laga dareemayo nugayl iyo habacsanaan badan, iyagoo muddooyinkii dambe ay soo baxayeen dalal badan oo Carbeed oo xiriir wanaagsan la sameynayo Israa'iil. Xiriirkan ayaa loo fasiran karay mid muujinaya ku qanacsanaanta dhulka Carbeed ee la haysta iyo Masjidul Aqsa oo ahaa qibladii koowaad ee Islaamka, iyo halkii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam lagaga dhoofiyey Israa wal Micraaj. Halka Soomaaliya wasiir fikirkiisa cabiray oo bartiisa bulshada ku soo qoray in uusan aqoon sabab Soomaaliya ay Israa'iil xiriir ula yeelan weydo, ayaa xilka laga qaaday, inkastoo aanay ahayn tani mid hadda dhacday oo ay ahayd sanadadii la soo dhaafay. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaggiisa ku eedeeyay Xamaas in ay soo goysay khadka cagaaran, khadka cas. Ugu dambeynna, ciidamada Israa'iil ayaa lagu khasbay inay dhismaha isaga baxaan. Waa dhismaha masjidka barakeysan ee Aqsa, waa ayna isaga baxeen dadkii u dagaalamayay ee doonayay masjidka inay ku cibaadaystaan ayaana dib ugu soo qulqulay. Xaaladda ayaa waqtigan degan iyada oo dhibaato iyo rabshado goor kasta la filan karo.